jaac kusoo dhawow ugu horeyn warbaahinta SBC waxaa ka mid tahay dadweynaha ku dhaqan deegaanada gobolka Sool gaar ahaan degmada Caynabo waxaad faahfaahin naga siisaa saameynta biyo la'aantu ay ku yeelatay deegaanadaas oo dadka intooda badan ay ka cabanayaan. Saameynta haddii aan wax kaaga sheego shiiba degmada Caynabo gobolka Sool ka tirsan abaar ayaa ka dhacday. dadku wuxuu ka guuray meel ilaa 200 kilomitir dhul gaadho dartiisa dadkii oo Burtuleeyo ku dhawaaday iyo Garowe waayo dadka qaar baa dhaafay Boocame ku dhaafay xagga koonfur bari marka dadkii Caynabo ka guuray ama ka guuray meelo tog dheer ka midaba marka duruufo adag ayaa ka jira inka deegaanka gobolka Sool qaybta degmada Caynaba oo kale deegaanadeeda dadkeedii waxna way guureen wixii soo harayna waxay u liitaan haraad iyo biyo la'aan waayo fursada biyaha waxay nagu gaadhay ilaa $5 lacag gaadha ilaa $4 iyo badh marka duruufta ugu adag waa biyo la'aan iyo hoy la'aan ka guuray hoy la'aana iyo dayaacyo badan oo ka jira marka duruufaha ka jira waa duruufo noocaasa sida nabadgelyada beelaha isku guuro kale waa iska labanto way fiican tahay oo haddii wax yara dhacaana markiiba qabaylkiyo yaa dhexgala iyo odayaasha iyo waxdaadka laakiin duruufaha ugu adan waa taa abaarta iyo biyo la'aanta. waa tahay jaac marka waxaad faahfaahin naga siisaa halkii ayay markii hore dadka deegaankani biyaha ka heli jireen. dadka deegaankani markii hore waxay ka heli jireen barkada gaargaar oo dambeeyo biyahooda la kala iibsado barkada caadiga gacanta lagu qado meeshan waa nugaalo biyaheedu waa biyo adag oo matalan ceelka Caynabo kale iyo ceelasha la midna cayn ku yaala marka dadku ma cabi karaan oo biyaha aad u taana waa adag barkadii ku cabi jireen dambeeyo la kala iibsan jiray barkadiina roob la'aan baa ka dhacdo biyo ma gelin dabadeedna waxa looga doonaa dirto meelo aad u fog sida Caynabo inta biyaha waxa looga doonaa Burco oo jirta 120 kilomitir jirta ayaa looga doonaa dirto dabadeedna duruufo noocaasa ka jiro aan biyo la'aana. maxaa lagu keenaa marka biyaha Burco laga keenay sidee ayay ku soo gaaraan Caynabo hadda? si aad u adag ku soo gaaraan oo aad u qaali oo aan dadku wada yareeysan bakarin oo marka xiriga inamale hay'ado gurmad sameeyo biyo keenana ma jiraan imika dadka deegaanka magaalada deganaa wax ka soo xuntiga ayaa abaartii berigood dhacday ay ka dhamaysay xoolihii oo magaalada Caynabo labadeeda koonaha galbeedka iyo koonaha bariga ka degan waxa degan dad ilaa markii ugu yaraadaan ilaa 1200 qoys oo dan yara marka duruufo badan baa jiro way xagga hay'ado way dhaceen oo ma yimaadaan ama kuwa yimaada kuwa waxba taro ma wax nafla taro ma marka duruufo adag jirta dadweynahaas wuxuu u baahan yahay gurmad degmooyinka Sool ka tirsan kamid ah marka oran lahayn hadday dawlad tahay hadday hay'ad tahayba haddaan nahay wax garadkii waa tahay marka jaacow ilaa hadda ma jirtaa cid ay dhibaato ka soo gaartay biyo yaridaasi deegaanada ka jirta amaba biyo la'aanta deegaanada qaybtood ka jirta. qofka markii biyo jabnaayna caadiga inay si karno xitaa waxa ka jira xanuunada jirayda waxa ka jira subano xanuuna xitaa noocaasa ka jira waxaana waxa keenaya had iyo jeer biyo la'aanta oo ay bulshada haddii biyo ka xumaadaan waa nolosha koowaad oo nolosha oo dhan duruufteeda ciriiriga gelaya maradii biyo la'aan naftii weynay waa halisteeda ilaa waxay dhibaato leedahay dawladda wariye marka waxaan oran lahaa in qaylanaan laga diro deegaankan cid kasta oo dareynaysa oo ka naxasaba dadka in loo diro qaylanaan oo si degdeg ah loola soo gaaro hadday balxoonti tahay iyo hadday kii hore aruuyi laga tahayba wixiiba waaba isku darsay badiya dadka meesha deganna 80% baa dee marka horeba dan yar waa tahay ilaa haatan marka maamulka deegaanka iyo maamulka Somaliland oo iyaga laftirkoodu gobolka ka taliya ama deegaanka Caynaba ma jirtaa cid gacan ka geysatay sidii wax looga qaban lahaa biyo la'aantan ay dadka deegaanku ka cabanayaan? ma jirto madaxweynaha noogu ballan qaaday inuu hiil ka godayo waqti hore oo dhowr laba jeer oo kala dambeeya
wax alla wuxuu ka qabtayna ma jiro madaxweynaha somaliland wax alla wuxuu ka qabtay ma jirto waxaanaanu hadda u sheegaynaa oo u leenahay anagoo afkii dadweynaha gobolka sool ama degmada caynaba ama gaar ahaan magacawdiisa gobolada yareer bay kamid tahay somaliland magacawday oo gobolka sare lagu magacaabo waxaanu ka codsanaynaa ballanqaadku ummadda u fuliyo iyadoo ay xaalada masiinka wanaagsanto ay barwaaqo iska too dadka iska ladan yahay inuu tii madaxweynaha au fuliyo somaliland oo noo fuliyo oo wixii au dadweynaha ugu ballan qaaday ugu xoreeyeen fadlan waxaanu ka codsanaynaa inuu u naxariisto dadkiisii u codeeye aqlabiyada siiyey oo ceelku ku ballan qaaday au si degdeg u qodo hadduu nin laa garanaya yahay waa tahay marka laga yimaado biyo la-aantaas ka jirta deegaamada qaybtood oo aad ka sheekeynaysid maxaa kale oo xaalada bini-aadantinimo ah oo ka jira deegaamadaas xaalada bini-aadanimo horta marka horeysa dayarnimana way iska jirtaa oo dad aan waxba haysanna way jiraan biyuhu waa marxaladaha duruufaha adaga dadka haysta ta koowaad ta haysta waa cuntada ta kale waa daawada oo way bukaan oo waxay leeyihiin hataa bereg loo jiro covid-19 kalada ciidamada baa dhawax hayaba berowga saan seexawihiina qoyskuluba u yahay oo wax daawaa male waxyaalo badan duruufo badan baa ku gadaaman duruufo badan baa dadkaa ku gadaaman waxaa ku gadaaman kii waxa xoolo nool hayo yaa walba gobolka xoolaha nool baado xoolihii noolaana ay dhamceen bo caanihii yaraa wixiibana ay kala tageen oo laisugu ururay magaalada laascaanood wixii ka xiga koonfur bari oo puntland hataa puntland ay galeen intay dhaafeen bay puntland galeen burtulana xaggaa ka galeen xaggana garowa kaga dhawaadeen marka duruufo aad u badan baa jiro ka guureye deegaankiisii ka guura dadka iska dayen deegaan berigii soomaalida isku guurisata maaye isna duruufada ka haysta kuu ka tegayna de waaba beerkay dhigatay marka waxaanu leenahay hadday xukuumad tahay iyo hadday hay-ad tahayba waxaanu si degdega uga codsananaa in loogu gurmado dadka oo laga naxo oo laga yaxyo loo gurmado ayaanu codsananaa haddaanu nahay dadweynaha deegaanka waa tahay jaamac waxaad iiga warantaa dadka maadaama dee dad badan ay deegaanka isugu yimaadeen islamarkaasina ay xaalado bini-aadanimo oo dhowr ah ood kasoo sheekaysay ay ka jiraan caafimaadka oo kale halkee ayay dadka deegaanku ka helaan caafimaadka oo kale waxay ka helaan dhakhtar weyneeda magaalada caynaba laakiin dhakhtarku dee dawooyinki waxaasaa ku yara xiriiriya oo dee waxay u baahan yihin gacan qabad dee dhakhtarku dee shaqaalaha joogtay doctoorada joogaa de waxay doonayaan in loo keeno waxay dadka siiyaan ila dadkan qaar baan ganacsiga xamili karna waxba iibsan karna hadaa dee taalamaas gurmashay u baahan yihiin oo wakti adag baa dhacay iyo kaa walba dayar ah ayaa haddana wakti adag oo abaar ku dhacay marka waxaanu leenahay cid kastoo ka yahayahasaa dadka usoo gumato madaxweynahana waxaanu ka codsanaa mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba ceelka ugu ballan qaaday magaalada caynaba inuu fuliyo oo si degdega ugu soo diro hadduu hadda soo diro hiijiyo meel iskaga degan 10 casho gudahood muddo aan gaadhin ayaan qabaa in uu soo saarayo biyaha waayo nidaamka soomaaliya dowladdiisa biran wakaalada biyaha u shaqayn jirayo dee muddo gaaban baa riida uu kusoo saaraa biyaha oo biyaha macaan markiiba laga qaadaan hadday ugu dhowto 2 wiiga marka waxaan gurmad bay u baahan yihin dadweynuhu gurmad bay u baahan yihin waxaan u sheeganaa hay-adaha caalamka iyo madaxweynahaba cid kastoo ka yaxyaxasa dadweynaha waa tahay aada baa umahadsantahay jaamac ugu dambeyntii maadaama aad sheegtay inaad kasoo shaqeyn jirtay wakaalada biyaha ee soomaaliya xilligii dowladii dhexe ee soomaaliya dadka deegaankuna ay haatan ka cabanayaan biyo la-aan soo food saartay iyadoo xilli roobaadkii aan weli aysan roob helin tala ahaan sidee ayay dadka deegaanku biyo ku heli karaan biyahaasi haddii ay helaanse sidee ayay u maareyn karaan biyaha waxaa lagu heli karaa soonayaasha biyaha waa kala soonahan biyihiisa macaan waxaa lagu gaadhaa cimilado kale ugu fogaan 500 oo mitir ugu ilaa 500 oo mitir ilaa 300 oo mitir baa lagu gaadhaa markaa riisi intaa gaaraya haddii la helo biyo waana male biyaheedu waa bad dhulka qaar baan biyaba laga gaadhin oo biyaheedu fog ama aan laba ka gaadhin laakiin iyadu biyaheedu biyo adag oo sarreeya biyaha jilicsan oo hooseyo biyaha ugu wanaagsan ugu fogaan 300 hadday ugu fogaadaan 500 baa lagu gaadhaa
marka heshiiskii qodi lahaana waa la helayaa haddii madaxweynaha gunood agar baxsan yahay intaasoo jeero horena cabashooyin ka dambe ballanqaadada labada jeerna uu ballanqaaday oo noogu yimi halkan marka waxba aanay ka fulin waxaanu leenahay wixii dadweynaha loogu ballan qaaday ka fulin wixii ilaahay keenay ilaahay baa keenay laakiin wixii aad awoodi kartid dee weynaad u qabataa oo madaxweyne nuuska biix cabdi wuxuu ballan qaad u qaban karo fadlan waxaanu ka codsanaa bilis inuu daacad u noqdo dadkiisa u qabto wuxuu qaban karo taasaan codsanaa naga gudbinaysaa la weliye markaa inaha jiraa waa tahay ugu dambeyntii dadweynaha ku dhagaysanaya iyo hay-adaha iyo dowladaba fariintaada ugu dambeysa ee aada u gudbin lahayd fariinta ugu dambeysa aan u gudbinaya waxaa weya horta marka hore ilaaha laga yaabo dadkaa isku hayaamay iyo dadkaa duruufaha jira waa dad isku noola dadka hadduu deegaan yahay soomaalida waxay ku mamaadaa oodaab ka dhow ha la istilaasho qofba qofku ka dufroon yahay waxa taro waxaan kaloo aan odhan lahaa madaxweynaha iyo maamulada jira haddii puntland lagu dacaldabayo haddii somaliland dadku yihiinba dadku waa dad soomaaliyeed hala gacan qabto cid waliba cidday gacan qaban karto ha gacan qabato s b c na oo wareysigaa nala yeesho telefisika s b c na aada iyo aad baan ugu mahad celin lahaa adiguna waa mahadsantay weliye waxaan ku reenaa khayr waad mahadsantahay jaamac kaasina waxau ahaa jaamac maxamuud cali oo ka mid ah odayaasha deegaanka caynaba ee gobolka Sool waa ku mahad celinaya jaamac waa mahadsantahay